imikana waxaan u yeedhayaa waxaan kusoo dhaweynayaa mikrofoonkana xoghayaha maaliyadda u qaabilsan xisbiga Norway xisbiga wadani Norway. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد دمانتين واند ودا سلاميا انتينا كسو قيب gashay shirkan waxaan kaloon halkan ka salaamayaa madaxda xisbiyada mucaaradka isbahaysiga wadankii jooga iyo inta Norway ba joogtaba aad baan idin salaamayaa. waxaan kaloon halkan taxsiitiiraan looga dirayaa maanta ciyaalkii yaraa u bixiyay dalka maanta tacadiga xun loo geystay oo aad noogu reebtay murugo xoog u badan maanan ka filaynin maanta dalkayga Somaliland ee dimuqraadiga ahaa aan ku faanaynay inuu waxaas ka dhacdo. waxay nagu noqotay shock bay nagu noqotay haddaan nahay dadkayga qurbaha jooga taasna inay dib u dhacdo ma filayno. mudaharaadkuna waxaan doonayaa inaan istaagin ilaa iyo inta doorashada waqtigeeda lagu qabanayo ayaan anagu jecelnahay aan caruurta u baxaasna wax dambiya aan loo geysanin ayaan ka filaynaa. dhamaan waxa kaloon halkan aad iyo aad uga xumahay dadka la xiray ee xisbiga mucaaradka ah xisbiyada mucaaradka isbahaysiga ah ee jeelalka xunxun ku jira ee waliba aan Hargeysa lagu xidhin ee lagu xiray meel boorama ka shishaysa oo sida loogu rafaadayo aan loo tagi kareynin reerkoodii u tagi kareynin cidina aanay u tagi kareynin ee dhibaatadu haysato ee cunto xumadu haysato ee nologa soo waramayo taasna maanu ka filaynin in Somaliland ka dhacdo. taasna waa murugo aad noogu weyn. marka madaxweynaha Muuse Biixi waxaan ka codsanaynaa inuu wadanka sidan uu ku hayo wax ka bedelo ummadda sidan uu galiyo wax ka bedelo doorashadana waqtigeeda ku qabto ayaan ka codsanaynaa. haddii kale waxay kaaga tegaysaa magac xumo ayay kaaga tegaysaa. madaxweynihii wadanka ku ciyaaray ee u bixilayay jeelasha samaystay askartii samaystay wixii laga soo halgamay ayaad ku dhaqmaysaa maanta dalka loo xareeyay. marka caalamka adduunka oo dhanna way ku soo wada eegayaan. anaguna ma joojinayno intaan qurbaha joogno ashtakadaasaan wadaynaa oon kugu wadaynaa mudane madaxweyne arrintaas waa inaad xalisid aday ku taala. waxa kaloon u dirayaa guurtida iyo xildhibaanada wadankii jooga maanta hawshaas idinka idin taala 13 November waxba kama harsana waad ogtihiin fasax baad iska gasheen xildhibaanado fasaxa aad gasheen u bixiyo la laynayo ayaad fasax ku maqantihiin. taasna idinkan taar idinku soo diray waxaan leeyahay haddaan nahay dhaqaalihii xoghayihii Norway iyo reer Norway oo dhan madaxdii oo dhan taarkii waxay idin soo dirayaan waxay idinku leeyihiin ku soo noqdo oo hawshii ka gala oo Muuse sidii aad uga qaban lahaydeen dalka idinka idin taala. Salebaan waxaan leeyahay odaygii weynaa baa tahay mas'uuliyad weyn baa ku saaran inaad dhuumatid kamaan filaynin ood meeshaad gashay iminka aan laanahay. marka bal soo baxo oday weyn intaad iska dhigtid mas'uuliyadda qaad oo Muuse soo qabo labadiinaasba wad qaban kartaan ka baarlamaanka gudoomiyaha baarlamaanka iyo gudoomiyaha guurtida labadiinuba wad qaban kartaan haddaad doonaysaan. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. nuur aad iyo aad bay u mahadsan tahay.